muwaadiniin Soomaaliyeed oo tiradoodu gaarayso 44 qof kuwaasi oo maxkamad ku taala magaalada Mumbai ee dalka Hindiya ay ku xukuntay xabsi daa'in ayaa la sheegay in la qorsheynayo in loo soo wareejiyo Soomaaliya si halkaasi ay ugu dhameystaan muddada xukunkooda. Warbaahinta Hindiya oo soo xiganaysa ilo kala duwan ayaa sheegtay in maxaabiistani aysan lahayn ehel ku sugan Hindiya, taasina ay keentay in ay codsadaan in loo wareejiyo xabsiyada Soomaaliya. sida wararku tilmaamayaan, arrintan ayaa waxaa fududeyn kara heshiis Soomaaliya iyo Hindiya ay kala saxiixdeen sanadkii 2017 kaasi oo dhigaya in maxaabiista lagu xukumay xabsi muddo dheer loo wareejin karo dalkooda si ay ugu dhawaadaan qoysaskooda iyadoo la raacayo habraacyada sharci ee labada dal. Haddii qorshahani uu hirgalo, muwaadiniintan ayaa noqon doona maxaabiistii ugu horreeyay ee laga faa'iideeyo heshiiskaasi iskaashi ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Hindiya. Qareenada u doodayay maxaabiistan ayaa codsaday in laga wareejiyo xabsiyada dhexe ee Tajola loona gudbiyo Soomaaliya iyadoo daliil ay uga dhigeen heshiiska labada dowladood ee u ogolaanaya maxaabiista buuxisa shuruudaha lagu wareejinayo dalkooda. Wararkan ayaa sidoo kale sheegaya in wasaaradda arrimaha dibadda ee Hindiya ay heshay codsiga isla markaana ay la xiriirtay safaaradda Soomaaliya ee Hindiya iyo hay'adaha kale ee qusayso si looga arinsado habka sharci iyo maamulka suurtagelin kara wareejinta maxaabiistani. Ilaa iyo hadda dowladda federaalka ee Soomaaliya si rasmi ah uguma aysan hadlin wararka sidaas darteed waxaa la sugayaa mowqifkeeda ku aadan suurtagalnimada in la aqbalo wareejinta 44 maxbuus oo ku xukuman xabsi daa'in.